أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا رجنا صحابة رضوان الله عليهم marka laga sheekeynayo bani aadam baa laga sheekeynaya hadda marna ruuxna isma odhanaya malaa'ig baa laga sheekeynaya mooye marka dadka noocaasa kuwa dhowni qaatayaasha ah ee dilaaliinta ah ee caqiidadooda iibsaday caqiidadooda iibgeeyey ee wixii ugu qiimaha badnaa ku tijaaraysanaya ee ku ganacsanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu sharkooda inaga qabto sharkooda allah inaga qabto waa mujrimiinta ah dhowni qaatayaashaas dilaaliintaas sharkooda allah inaga qabto waxba ka qaadi maayaan saxaabada cay waxba kaga qaadi maayaan laakiin waxa weeye iyagunbaa ku fogaanaya oo ilaahay naxariistiisa kaga fogaanaya marka ilaahay waxay mudan yihiin allah mariyo calaamada allah inooga muujiyo durba calaamada allah inooga muujiyo cumayr ibnu wahab oo seeftiisii afaystay sunna soo waraabiyey oo yimid madiina inuu dilo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam halkaasaynu mari kaana cumar bn khadaab radia allahu canhu sayid cumar wuxuu ahaa id daaka goortaa iyada ah ee uu cumayr soo degayo jaalisan mid fadhiya maca bacdi الsaxaabati asxaabta qaarkood buu la fadhiyey qariiban min baabi lmasjidi albaabka masjidka meel ku dhow albaabka masjidka meel ku dhow buu fadhiyeen yatadaakaruuna waxay ka sheekaysanayeen badran beder bay ka sheekaysanayeen beder baa waxay tahay shu-uunu saaca marka iyada ah shu-uunu saaca wey maka marka la joogana fadhiyada waxaa lagu hayaa beder madiine marka la joogana fadhiyada waxaa lagu hayaay waa beder wey marka beder bay ka sheekaysanayeen wamaa khallafatu iyo wixii ay reebtay waraa'ahaa gadaasheeda min asraa qurayshin waqatlaahum quraysh dadkii laga soo xirxidhay 70 waqatlaahum dadkii laga laayay oo 70 wayastaciiduuna asxaabtu waxay ku soo colceshanayeen suwara butuulaati lmuslimiin muslimiinta halyeynimada muslimiinta sawirkay lahayd ee min almuhaajiriin walansaar ka kooban ayay hebel suu dagaalamayey ayaa laga sheekaysanayay wayadkuruuna waxay sheegayeen ma akramahum allahu bihi min annasr ilaahay subxaanahu wa tacaala nasriga uu ku karaameeyey ayay sheegayaan wamaa araahum iyo wuxuu ilaahay tusiyey fii caduwihim cadowgooda uu ka tusiyey min annikaayati ciqaaba nikaaya waxyeelayn ciqaab walkhudlaan iyo hoojina ayay ilaahay ka tusiyey bay ka sheekaysanayaan faxaanat waxaa ka dhacday min cumara sayid cumar iltifaatatun daymoonsho isagoo sheekadii lahayo ayuu hal mar daymooday faraa wuxuu arkay cumayr ibnu wahabin yanzilu can raaxilatihi oo raaxiladiisii ka soo dhaadhacaya way is yaqaanaan way isla soo koreen wuxuu galo iyo wuxuu gudaba u garanaya wayamdi naxwa lmasjidi oo toos masaajidka u aaday mutawashaxan sayfahu seeftiisii jeeni qaarsaday oo intuu halkaa garabkaa saaray garabkaa kalena ka riday sida sidadeeda macnaha seefta sidadeedii mutawashaxan jeeni qaarsaday sayfahu seeftiisa fahaba wuu booday sayid cumar madcuuran isagoo argagaxsan oo waqaala wuxuu yidhi haada alkalbu caduwu llaahi cumayr ibnu wahbin aygani waa cadowgi ilaahay ee cumayr ibnu wahab ahaabi sayid cumar radia allahu canhu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu sheegay weeye madii hore waxaa jiray mukallamuun dad lala hadlo
fain kaana min ummatii facumaru ummadayda haddii uu jiro dadkaas wax loo sheegay sayid cumar weeye biri nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahi maa jaa ilaa lisharin shar mooye wax kale oo ninkaa keenay ma jira biyo laqad allaba almushrikiina mushrikiintuu noogu qayshaday tacliibka waxaa la yidhahda soo habarwacasho noogu habarwacday calaynaa fii makata maka markaan joognay mushrikiintiibuu noogu habarwacday oo nagu soo kiciyey dee maka deganayn ee aanu ayna dhibayeen wa kaana caynan lahum wuxuuna u ahaa basaas calaynaa annaga basaas nagu ah qubayla bedrin beder horteedna basaaskooda ayuu ahaa bi uma qaala lijulasaa'ihi raggii la fadhiyay buu ku yidhi umduu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sheekada jara halkaa ku joojiya oo rasuulka u kaca wa kunuu xawlahu hareeraha ka istaaga waxdaruu ka digtoonaada an yaqdura bihi inuu ku ballan furo oo khaa'imo hada alkhabiisu almaakiru ninkan xun ee maakirkae khaa'inkihi inuu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qadri ku sameeyo khayaamo ku dilo ka digtoonaada uma baadara cumaru ila الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam cumar rasuulku toos ugu tegey wa qaala wuxuu yihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow hada caduw اllahi cumayr bnu wahbin qad jaa'a cadowga ilaahaye taqaanay ee cumayr ibnu wahab ahaabaa yimid mutawashaxan sayfahu seeftiisii soo jeeni qaartay wamaa adunuhu ilaa yuriidu sharan wax kale u malayn maayo inuu shar u socdo may wax kale u malayn maayo faqaala calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku wuxuu ku yidhi adkhilhu calaya soo geli yidhi ii soo geli faaqbala alfaaruuqu wuxuu ku noqday uu jeedsaday calaa cumayr sayid cumar waakhada wuxuu qabtay bitalaabiibihi kallarka ayuu soo qabtay wa tawaqa wuxuu ku duubay cunuqahu luquntiisa biximaalati sayfihi seeftii uu jeeni qaarsanaa ximaaladeedii sudadii seefta xadhiggii seefta ayuu tawaqa cunuqahu luqunta saa ugaga soo duubay wamadaa bihi naxwa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam deedna rasuulka ayuu la aaday isagoo saa u jiidayo saa wada falamaa ra'aahu nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calaa haadihi alxaali rasuulku markuu arkay ninkii oo xaaladda noocaasa loo hogaaminayo qaala licumara cumar buu ku yidhi aطliqhu yaa cumaru cumarow sii daabi faalaqa uu sii daayey uma qaala lahu wuxuu ku yidhi istakhir canhu dib uga istaag fata'ahara canhu dib buu uga istaagay uma tawajaha arasuulu sala allahu calayhi wasalama ilaa cumayr bni wahbin idna rasuulku cumayr buu kusoo jeedsaday oo wa qaala wuxuu yihi udnu yaa cumayru cumayrow soo dhowow fadanaa wuu soo dhowaaday oo wa qaala wuxuuna raaciyey ancim sabaaxan subax wanaagsan yuu raaciyey wa hiya taxiyat lcarabi fi ljaahiliya carabtaa isku salaami jirtay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laqad akramana allahu ilaahay wuxuu nagu karaameeyey bitaxiyatin salaan khayrin ka fiican min taxiyatika salaantaada ka fiican yaa cumayro laqad akramana allahu bisalaam ilaahay wuxuu nagu karaameeyey assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wahiya taxiyatu ahli ljannati ahlu jannaha salaantooda weeyaan salaanta ahlu jannaha wey salaamahan maxaad ku barideen iyo indhaminaa daraaju iyo how do you do iyo waxaasi waa maxay kulli waa wada su-aal wey laakiin salaanta islaamku waa duco wey assalaamu calaykum wacalaykum assalaam marka waa nicmay qaaliya nicmooyinka qaaliga ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta siiyey yay ka mid tahay salaantan islaamku brivate dhigayo yani ingiriiska un dee wax kaleba aan weligiiba malaha alif lama odhanin yaa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi salaamaha internationalka kumaba jirtaba assalaamu calaykum salaamaha internationalka kuma jirtuu ku leeyahy miskiin sana
faqaala cumayr wuxuu yihi wallahi maa anta bibaciidin can taxiyatina welisan kuu taagaya maxamedow salaanteeda shalay un baad cim sabaaxanta nala haysay ya naga kama fogid buu yihi shalay unbaad isticmaalaysay wa inaka biha la xadiidu cahdin waqti dhow yaa kuugu dambaysay faqaala lahu rasuulu calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi wama aladii jaaa bika ya cumayru maxaa ku wada yidhi cumayrow maxaa maka kaa soo safriyey 500 kilomitr maxaa ku keenay qaala wuxuu yihi ji'tu waxaan u imid arjuu anoo rajaynaya fakaaka hada alasiiri maxbuuskaygan inaad ii sii daysaan alladii fii aydiikum eed gacanta ku haysaan faxsinuu ilaya fiihi iigu ixsaan fala oo ii sii daaya qaala wuxuu yihi famaa baalu sayf alladii fii cunuqika seeftan aada suran tahayna maxay tahay qaala cumayr wuxuu yihi qabaxaha allahu min suyuufin seefaha allaha ka reebe allaha xumeeyo seefaha allaha ka reebe wahal aqnat cannaa shay-an yowma badrin aantii beder maxay noo tartay waan iska wadanaa une ciil culays bay igu dishay maxay noo tartay qaala rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi usduqnii runta ii sheeg ma aladii ji'ta lahu yaa cumayru maxaad u timid oo ku keenay runta ii sheeg qaala wuxuu yihi maa ji'tu ila lidalika bas intaa waxaan ahayn uma imanin qaala calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku wuxuu ku yidhi bal sidaa ma aha qacadta anta wa sufyaan ibnu umayata cinda alxijri xijru ismaaciil ayaad adigiyo safwaan ibnu umaya fadhiisateen fatadaakartuma asxaaba alqaliibi waxaad ka sheekaysateen qaliibkii godka qoladii lagu guray yaad warkoodii ka sheekaysateen min sarca qurayshin raggii quraysh laga laayay uma qulta markaasaa waxaad tidhi lowlaa daynun calaya wa ciyaalun cindii haddii dayn la igu leeyahay iyo caruur ii joogta ayna jirteen la kharajtu waan bixi lahaa xataa aqtula muxamadan ilaa muxamed aan soo dilo yaan bixi lahaabaa tiri fataxamala laka waxaad dusha u ritoo xambaartay safwaan min umaya daynaka wa ciyaalaka dayntaadii carruurtaadiiba isaga ayaa dusha u ritay calaa an taqtulanii bishardi inaad isoo disho wallaahu xaa'ilun baynaka wa bayna dalika ilaahay baana subxaanahu watacaala adiga arrinta aada damcday idinkala dhex joogo oo kuma suuroobayso xaa'il xaajiz dayr buu kaaga yahay fadahila cumayru cumayr wuu wareeray laxdatan waxoogaa buu hadalkuba ka soo bixi waayey uma maa labitha an qaal marka hadalkii u horeeye ka soo booday wuxuu noqday ashhadu annaka la rasuulu llah waxaan qirayaaba inaad rasuulka ilaahay tahay uma ardafa wuxuu raaciyey yaquulu inuu leeyahay laqad kunnaa yaa rasuula allahi nukadibuka waxaan rasuulka ilaahayow aanu kugu beeninaynay bimaa kunta ta'tiinaa bihi min khabari samaa warka samada eed noo keento yaanu odhanaynay muxamedow been baad noo sheegaysaa yaanu odhanayn wamaa yanzilu calayka min alwaxyi waxyiga kugu soo degaya ayaan odhanayna waa shaydaan baa kuu soo degaya waxyi waxba kama jira baanu odhanayna laakina khabarii laakiin warkayaga maca safwaan ibni umaya aanu sheekaysanay lam yaclam bihi axadu ilaa ana wahuwa qof cid ogeydba ma jirto aniga isaga mooye labadayada cidinama wehelinaynin wallaahi baan ku dhaartee laqad ayqantu waxaan yaqiinsaday annahu maa ataaka bihi ila allahu subxaanahu watacaala ilaahay mooye cid kaloo warkaa kuu keentay inayna jirin yaan yaqiinsaday bu yidhi maanta bal ninkaa lasoo safriyey de islaamnima loo soo safriyey allahu akbar faalxamdu lilaahi aladii saaqanii ilayka sawqan ilaahu waxaa mahadla isoo kaxeeyey dabada iga soo kaxeeyey soo kaxayn liyahdiyanii ila alislaam inuu islaamka igu hanuuniyo darteed ii soo kaxeeyey baa mahadlay uma shahida an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulu llahi wa aslama halkiibuu ku islaamay
faqaala calayhi الصalaaةu wasalaamu liasxaabihi rasuulka asxaabtiisa ku yidhi faqihuu akhaakum fii diinihi walaalkiin diintiisa bare durba maanta caduwullaahi buu ahaa goor dhoweyd maantana akhwaakum walaalkood buu noqday wacallimuuhu lqur'aana qur-aankana bara waatliquu asiirahu maxbuuskiisana u sii daaya furasho la-aan buu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam farixa almuslimuuna muslimiintu waxay ku farxeen biislaami cumayr bni wahbin soo islaamidiisa ashadda alfaraxi farxad adag ta ugu adag bay farxeen xataa ina cumara bni اlkhaطaabi radia allahu canhu qaal farxaddu waxay gaadhay in sayd cumar yidhi lakhinziirun kaana axaba ilaya min cumayr bni wahbin doofaar baa iiga sokeeyey oon ka jeclaa cumayr bni wahab xiina qadima calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam markuu rasuulku yimid walyowma axabu ilaya min bacdi abnaa'i maantana caruurtayda qaarkood baan ka jeclay wa fii ma kaana cumayr isagoo yuzakii tarbiyaynaya nafsahu naftiisa ku tarbiyaynaya bitacaaliimi اlislaam islaamka tacaaliimtiisa iyo sharcigiisa ee ku tarbiyaynaya qof kastaa tarbiya u baahan yahay ruuxuun inta uu wax islaamo deedna saa la isaga sii daynayaa ma jiro ruuxu waa in la tarbiyay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka maarmi waayey intuuna dhalanin laga soo bilaabo intuu nebi aadam dhabarkiisa ku jiray laga soo bilaabay tarbiyadu usoo bilaabatay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa an tawafaahu allahu ilaa uu ka dhintayna tarbiyadu uu socotay oo wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam min ladun aadam ilaa an waladatnii ummii lama mura sibaax o kama qaala sala allahu alayh wasalam kasoo bilow nebi aadam ilaa iyo hooyada iga dhashay guur zino guur xaraama maba soo marin bu yihi nabigu calayhi salatu wasalaam waxay ka mid ahay taasi tarbiyada ilaahay soo tarbiyanay bay ka mid ahay markuu dhashay ilaa intuu risaalada ka qaadaynayna waa la tarbiyeynayey waataynu meelo badan ku aragnay xaalado uu isqaawiyey rasuulku alayh salatu slam markii dhagaxa kacbada la dhisaya oo kale in lagu dhuftay oo gebigiisuba dhulka oo galay ay ka mid ahayd xaalado uu yihi bal sida dhalinyarada u caweysimaya amaan usoo caweysimi oo deedna la seexiyey meeshii oo kaman iyo muusiq iyo durbaanka la tumayo haddana la seexiyey nabiga calayhi salatu wasalaam baa ka mid ahayd ilaa iyo risaalada loo soo dhiibay qur-aanka soo degayey qaybo badan oo ka midii waxay ahaayeen kuwa isaga toos loogu canaananayay nabiga calayhi salaatu wasalaam 16 aayadood suuratu cabasa u horeeya canaan rasuulka toos ugu dhacaysa bay ahayd cabasa watawalla an jaahu lacma maxay taasi tarbiyay ahayd la rabaynaya nabiga calayhi salatu wasalaam oo laga hor istaagayo wixii markaa kolba loo dareemo inuu in yar leexanayo loo dareemo lagaga hor istaagayo ayay ahayd markii zayd uu furay ee gabadhii ahayd zaynaba ee uu guursaday nabigu raba inuu guursado aayadihii soo digay waynu xusuusanaa canaan nabiga calayhi salaatu wasalaam toos ugu socota ayay ahayd marka qof kastaa wuxuu u baahan yahay tarbiya u baahan yahay tarbiya wuxuu u baahan yahay haddana isku dheeli tiran buu u baahan yahay tarbiyadii caqliga iyo tarbiyadii jirhka iyo tii nafta ruuxda iyo tii maskaxda iyo ma garanaysaa tarbiyadii ijtimaaciga ahayd tii siyaasiga ahayd tii jihaadka dhinac walba qofku inuu ka tarbiyaysnaada tarbiya isku dheeli tiran uu rabaayadeeda qaato u baahan yahay waxaa 4 qaybooda jirhkeena la yidhaha way ka kooban yahay 4 waa inay helaan waa in ruuxdu hesho wacdigii waa inay hesho ruuxdu waa inay hesho maskaxdeennu waa inay hesho cilmigii ay ku kori lahayd waa inay hesho qalbigu waa inuu helo iimaankii waa weel weeye weelka intii la nadiifiyo tawba lagu nadiifiyo waa in iimaan laga buuxiyo waa inuu helo jasadkuna waa inuu helo isaguna tarbiyadiisa waa inuu helo waa in caafimaadkii uu helo waa inuu quwadii u lahaado waa in khushuunadii iyo adaygii iyo uu barto wuxuu leey nabigu calayhi salatu wasalaam ikhshawshanuu fa ina alnicma laa taduum qallafsanida barta jiif xumada barta
cunto xumada barta, gaajada barta, oonka barta, socodka barta, aad lugaysaan barta. fa ina nicama laa taduum, raaxa un lagu jiri maayo, raaxa un lagu jiri maayo. marka waxa weeye dhallinyaradan zamankan soo korayso ah kuwa dadka ugu liita markii laga eega dhankaas, waxaa la yidhaha ilmaho ina hooyaa la yidhahdaa, ina hooyo. inaad aragteen iskuulka marka loo diri buraashad baa yaa la socota iyo kodhad yaroo ay buskud iyo wax ugu jiraan yaa la socota. intaa yaruu iskuulka ku maqan yahay baa loo diidayaa inuu yar. marka kaasi muxuu noqon baad umalayn? waxbaba noqon maayo kaas. ina hooyahaasuu noqon, isagoo 15 jir laga yaaba in boobogaysiiya uu yidhaahdo yuu noqonaya. marka waxa weeye lama raba sidaas. waxaa la rabaa in tarbiyadii islaamkoo saxa in la qaato, xataa wax kale iska daaye. waa in caruurta lagu tarbiya tarbiya aljinsiya, xataa waa inay qaataan tarbiya aljinsiya, waa inay qaataan. ilan guur baa iman oo reernima iman, sooma? waa wax weeyaan mas-uuliyad culus weeye, waana cilmi ballaadhan wey. waa in wiilki iyo gabadhu ay sii yaqaanaan wixii ay ma garanaysaa qaabkay u tacaamuli lahaayeen, ay reernimadooda ku wadi lahaayeen, waa inay garanayaan. wahaakada marka yuzakii nafsahu bitacaliim alislaam wayutricu fu'aadahu, uu qalbigiisa ku daajinaya binuuri lqur'aan, nuurka qur'aanka uu ku daajinayay. waxa maanta keenay tarbiyadan dheeliga ah ayaa waxay keentay in masaajidkiina maasha allah safka hore lagu jiro, oo qur-aanka la akhriyi og yahay, oo laga yaabo in la xafidsan yahay. markii la shaqo taga ee hal la xoogsada la yidhaahdana kiiba ma ahba, kiiba ma tihidba, kiiba ma tihid. war waa sidee? soo adigii safka hore ku jiray hadda uun sida fiican qur-aanka u akhriyayay. marka lilaahi maa lilaahi waliqaysara maa liqaysar haddii arrintu noqoto, ilaahayna intiisu masaajidkay taallaa, suuqa markii loo baxana dee waa sidii la raba ha loo noolaado. taasi waxa weeyaan waa dhibaatooyinka ina haysta ee tarbiya xumada inaga haysta bay ka mid tahay. wayutricu wuxuu ku daajinayey fu'aadahu qalbigiisa binuuri lqur'aan, wayaxyaa wuxuu noolaaday arwaca ayaami xayaatihi, ayaamaha noloshiisa soo maray ayaamaha ugu raa'icsan, ugu cajaa'ibta badan wey. wa akhnaaha ugu qinada badan, mima ansaahu makata waman fii maka, waxayba ilowsiisay maka iyo ciddii maka joogtayba way ilowsiisay arrintaas. kaana safwaan min umaya yumanii nafsahu lamaani, safwaan miyaa isagu yumanii nafsahu, naftiisa waxa uu ku yididiilinayey alamaani, mooraalka wuxuu isugu dhisayey yididiilo, ayuu mooraalka isugu dhisayey. wayamuru biandiyati qurayshin, golayaasha quraysheed buu marayey. wayaquulu isagoo leh abshiruu ku bishaaraysta binaba'in cadiimin, warweyn, ya'tiikum qariiban, idiin iman doona dhowaan, fayunsiikum waqcata badrin, oo dagaalkii badar idin ilowsiin doona. saasuu odhanay. lama sheegayo oo ma caddaynayo, laakiin wuu ugu sii bishaareynay. uma kadibna inahu xaal yashaaniye lamaa taala alintidaaru, markay sugiddu ku daba dheeraatay, calaa safwaan ibn umaya ay ku daba dheeraatay, warna uu waayey, akhada waxaa qabsaday alqalaqu, ama waxaa gudagalay alqalaqu, cabsidu, yatasarabu inay dhex gelayso ilaa nafsihi, naftiisa ay soo dhex gelayso, shay-an fa shay-an, aayar aayar, xataa hadaa ilaa uu ahaaday yataqallabu inuu isku dul rogrogayo calaa axara, wax ka kulayl badan, min aljamri, dhamac wax ka kulayl badan. wadafiqa wuxuu gudagalay yusaa'ilu inuu waraysanayo arrukbaana, safarada, can cumayr ibni wahbin uu ka waraysanayo. falaa yajidu cinda axadin jawaaban yashfiih, cidnaba jawaab shaafisa kama helo. xageed ka timid maka? madiina maxaa ka jiray? waxba, waa la iska noolaa, waa la iska joogay. cajab. ilan waxba ma qodi karo, hoos ma geli karo. war waa sidee say waxyihiin tolo. ilaa an jaa'ahu raakibun, ilaa uu u yimid nin safarihi, oo faqaala uu ku yidhi ina cumayran qad aslama, ama ka nax ama ku dhimo, cumayr wuu islaamay. fanazla calayhi alkhabaru nuzuula saaciqa, warkii muxuu ku noqday hanqar ku soo degay oo kale ku noqday warkii.
id kaana yadunnu maxaa yeele wuxuu u malaynayey anna cumayr ibna wahbin laa yuslimu inuuna islaami doonin walow aslama jamiicu man calaa dahri اlardi waxa dhulka ku nooloo dhan hadday islaamaan kollaba inuuna cumayr islaamaynin buu ku waday ama cumayr ibnu wahab miyaa fainahu maa kaada uma dhowaanin yatafaqah fii diinihi diintiisa inuu si fiican u baranayo wayaxfadu xafidayo maa tayasara lahu min kalaami rabbihi wixii u dhib yaraada ilaahi subxaanahu watacaala kalaamkiisa xataa jaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam ilaa uu rasuulka u yimid wa qaala uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow laqad qabara calaya waxay igu tagtay zamaanun waqti badan baa tegey wa ana daa'ibun waqti badan baa isoo maray oo tegey wa ana daa'ibun anoo ka dhaqan dhigtay calaa idfaa'i nuuri illaahi nuurka ilaahay demintiisa anoo ka dhaqan dhigtay shadiidu ladaa dhibaato badanna u lahaa liman kaana calaa diini lislaami cidda diinta islaamka haysataa dhibaato badanna aan ku hayay wa ana uxibu waxaan jeclahay an ta'dana lii inaad ii ogolaato bian aqdama calaa makata inaan maka tago liadcuwa qurayshan ila allahi wa rasuulih bal inaan quraysh alliga rasuulka ugu yeedho fain qabiluu minii hadday iga qaataan fanicma maa facaluu wax wanaagsan bay sameeyeen wain acraduu cannii hadday iga jeedsadaan oy diidaanna aadaytuhum fii diinihim shirkigooda ay ku adkaysteen baan ku dhibi allahu akbar kamaa kuntu uudii asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam intaan asxaabta rasuulka dhibaya oo kale yaan dhibi biri quraysh faadina lahu rasuulu calayhi salaatu wasalaam rasuulku u idmay fawaafaa makata makuu tegey wa ataa beyta safwaan ibni umayata meel kale uma leexleexanin toos safwaan ibni umaya gurigiisii buu aaday wa qaala wuxu uhi yaa safwaanow inaka la sayidun min saadaati makata min sayidan baa tahay sayidada reer makaada ina umayaa tahay waxaaqilun min cuqalaa'i quraysh dadka caqliga lagu tuumo ee quraysheed baad ka mid tahay afa taraa ma waxaad u aragtaa anna haada aladii antum calayhi waxaanaad ku sugan tihiin min cibaadati alaxjaari dhagax la caabudo waadabxi lahaa oo loo gowraco dhagax la caabudo loona gowracaa yasixu fi lcaqli caqliga inay ku ansaxayso an yakuuna diinan inuu yahay maad u aragtaa bi diin inuu yahay maad u aragtaa bi ama ana anugu waan ku maqashiinaya faashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulu uma dafiqa wuxuu gudagalay cumayrun yadcuu ila allahi fii makata inuu maka gudaheeda dadka alla ugu yeedhayo xataa aslama calaa yadayhi ilaa gacantiisa ay ku soo islaameen khalqun kahiirun dad fara badan ay ku soo islaameen ajzala allahu mahuubata cumayr bni wahbin hawaabkiisa allah u weyneeyo ajzal allahu acdama allahu wanawara lahu fii qabrihi xabaashana allaha u nuuro intaasaa la inoogu daayey cumayr bnu wahab iyo qisadiisa wixii kale in sha allahu maraajicdaas baynu ka qaadan doona albaraa bnu malikin alansaariyu baa kuu yimid kolba xidig weyn oo xidigaha ilaahay ka mida xidigihii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka mida waa xidigo weeyaan xaqiiqatan biayihim iqtadaynaa ihtadaynaa saxaabadu dhammaantood waa xidigaha cirka weeye xidig kasta ood eegato waad ku hanuuni mid kasta oo ka mida oo aad ku dayato dhaqankiisa wanaagsan waddadii saxda ahayd baad qabsatay mid kastood jeclaatana sababtiisa jannada waa lagu geli in sha allahu tacaala jacaylkooda qalbigeenna allah ku adkeeyo raggaa jacaylkooda qalbigeenna allah ku adkeeyo jacaylkoodaana ilaahay ha noogu naxariisto difaacoodana nolol intaan nool lahay waxaan ballan gelaynaa inaan difaac u nahay saxaabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wafaa'an licahdihi innagoo
abaalka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam gudayno abaal uga dhigayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam. baraa ibnu malik alansaari wa anas ibnu malik walaalkii cumar bnu khadaab baa wuxuu leeyahay laa tuwallu lbaraa'a jeyshan min juyuushi lmuslimiin. ninka la yidhaha baraa ciidamada muslimiinta marna hoggaan ha uga dhigina, baanduule ha uga dhigina, makhaafata an yuhlika jundahu, waayo waxaan uga cabsanayaa inuu ciidankiisa halaago biiqdaamihi magabadanimadiisa daraaddeed. waxa weye nin gabada ama dhufays ku dagaalama ma ahee waa nin orod ku dagaalama, deedna ciidanka dab buu ku daadin wey, dab inuu ku daadiyaan ka cabsane isaga ha la hogaamiye une isagu marna yun cidna hogaaminin. kaana wuxuu ahaa baraa ibnu malik ashcatha, nin iska basaasan, aqbara, iska boodh badan, da'iil aljismi, jidhkiisu daciif yahay, weyd yahay wey, macruuqa alcadmi, laftiisu soohan tahay, macruuqa alcadmi, laf soohan le, lafti waa hilib yar tahay, macnaha taqtaximuhu caynu raa'ihi, qofka arka indhihiisu way derderayaan wey, taqtaximuhu way derderayaan, caynu raa'ihi ka arka indhihiisu, uma kadibna taswaru canhu way ka jeedsan, iswiraaran ka jeedsi. marka hore waa la quursanoo waxaa loo arkay inuu yahay nimaan waxba ahaynoo waxaa la is odhan kan saa un u jeedha, laakiin markay alaabi ka hor timaado khatar hoosii la filayay ay noqon waayo oo intuu ragga hoosta ka galo uu beerka kaga fadhiisto, waxa weeye xag iyo xaggaa loo kala yaacayo. walaakinahu maca dalika, taagdarridaa uu leeyahay buu qatala ku dilay 100 min almushrikiina mubaarazatan waxdahu, 100 gaal ayuu isu bixitaan ku dilay keligii. waxaa jirtay meeshan halkaa iyo halkaa la iska bildhaan dhowranayaad moodaysaa dhufdhac, wargabo haddana dhufdhac, dhufayska hoosa loo gala ma jirtee waxa weeye rag baa isu baxaya, nin baa intuu soo baxo odhanaya yaa ii baxaya, mubaaraza la yidhaahdaa. markaasaa waxa weeye laysu baxayaa oo laysku daawanayaa oon xag iyo xagga midna laga soo birmanaynin. 100 buusaa ku dilay, ninka 100 dilay mise dagaal buu galay, nafta goortii lagu tala gasho unbay baxdaa soo ma. cadaa markii laga reebo can aladiina qatalahum kuwuu ku laayay fii khimaari lmacaariki, dagaalka mawjadiisa, dagaalada mawjadooda kuwuu ku laayay ma tirsana maca almuxaaribiina, isagoo dee kuwa dagaalamaya la maca. innahu ninka la yidhaahda baraa ibnu malik alkamiyu waa magabade, albaasilu waa geesiga, almiqdaamu magabadaha, kamiyu iyo miqdaam waa isku mid ah. alladii kaasoo kataba uu qoray alfaaruuqu sayd cumar bisha'nihi, isaga arrimihiisa wax ku saabsan, isaga keliga arrinuu kalaga dardaarmiyo qoray, ilaa cummaalihi fi laafaaq, ragga jihooyinka kala jooga, hadday yihiin kuwa gobollada maamula iyo hadday yihiin kuwa ciidamada maamulaba, ayuu u kala qoray aafaaqda jihooyinka uu leeyahay, anlaa yuwalluuhu, yaynan madax uga dhigin calaa jeyshin min juyuushi lmuslimiin, ciidamada muslimiinta wax ka mid a, khawfan iyadoo looga cabsanayo min an yuhlikahum, inuu ciidankiisa halaago biiqdaamihi, hore ugelidiya magabadanimada daraaddeed. innahu ninkaasi albaraau bnu malikin alansaariyi wey, radia allahu canhu, akhuu anas bni malikin khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, anaskii aynu kitaabka ku aftaxnay walaalkii weyaan. walow ruxtu, haddaan u socdo, astaqsi laka, inaan dabada kaaga wada maro, akhbaara butulaati albaraa ibnu malik, wararka ku saabsan halyeynimada baraa ibnu malik haddaan damca inaan dabada ka galo, lataala alkalaamu, hadalkaa dheeraanaya, wadaaqa almaqaamu, kitaabkuna wuu inagu cidhiidhiyam, daaqa almaqaam, kitaabkuna wuu inagu cidhiidhiyam. lidaa saas darteed ra'aytu waxay la qumanaatay an acrida laka inaan kuu soo bandhigo
قصة واحدة هل قصة أوكلية من قصص بطولاته هل ينمديسا قصوينك كصابسا وهي تاسا تنبيك كاغا ورمي عما عداها انت كلي تبدأ هذه القصة قصة وحيب بالله منتي منذ الساعات الأولى سعده أوري لقب الله لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمشهد رسولك والتحاقه بالرفيق الأعلى وجمع السرع ليلي لقب الله هل كاس قصة سكب الله ميسا حيث قورتي طفقت أي قدقلين قبائل العرب عربت قبيلوين كود أي قدقلين تخرج إني كبحيان من دين الله دين إلهي أفواجا جمع وقبحيان كما دخلت في هذا الدين أفواجا سيدي أي دين تنكل كهرب جمع الصوقلين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سيصوقلين بهدنا بالله بين جمعي وقبحيان دينتا حتى لم يبقى إلى أن كبه رمبا على الإسلام إسلام لماذا إلا أهل مكة والمدينة والطائف مركي مقالوين ليرادو ومكية مدينة طائف وجماعات متفرقة يدد تكسن وهنا وهناك إن هلكا تشوكتا إن ريركا كوشيرتا إن هلكا تشوكتا وممن كوي ثبت الله إلهي السغي قلوبهم قلبي قول على الإيمان إيمانك وكسغي مو يعني صمد وقت كيستي الصديق أبو بكر رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة فتنة بربرسدا العمياء إن لأنت وقت كيستي صمود الجبال الراسيات sida buuraha dhidbani ay u adkaystaan ayna duufaan iyo wax walba foolkaana qarxata ay soo haraan wajahaza wuxuu diyaariyey min almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaar wuxuu ka diyaariyey 11 jeyshan 11 ciidan buu diyaariyey wacaqada wuxuu u xiray liqaadati hadihi aljuyuush ciidamada ragga duulinaya abbaanduulayaasha u ah waxa uu xidhay 11 liwaan 11 calan oo midabkiisu caddaan yahay oo nabadgelyo ka turjumaya jihaadka ayaa sidaa wadafaca bihim wuxuu u kala diray fi arjaa'i jasiirati alcarabi jasiira alcarabiya koonayaalkeedu u kala diray liyuciiduu say ugu soo celiyaan almurtadiina kuwa ridoobay إلى سبيل الهدى والحق وضد هنونك حق أي سعليا وليحملوا سي إسلام مركا وحن باران وكلفان المنحرفين كوا كاللحظي عن الجادة الطريقة كاللحظي بحد السيف سيف أفكاد أو استعمالان وكسعليان وضد كسعليان إلا واحد يقفكم مركا هرو الدين تسوق اليوم لا إكراه في الدين دين تخصمها لكن كالردوبي إما إنه دين تكسر النقضة وإما إن سيف كل كاللقاقوية وحكاد حياي متشرو لا يستحق الحياة يعني أصلا نظر من منا أبو بكر رضي الله عنه سيد عمر با يوحل وريا إنه أرنتا كالدوضي قارهان لبي أقيب سنين وقيبنا مشركين بأهين وضد معناها كلهم بأقالوا بأهين qaybtii zakada uun diiday ee tiri maxamed baanu zakada siinaynay maxamedna wuu dhintay ciddan boon siinaa ma jirto saas darteed salaadana waanu tukan zakadayadana waanu isku haysan yiri ayay u qaybsanaayeen gaar ahaan qoladaas wuxuu yiri sayid abubakar radiyallahu anhu yani mawaaqifta umar iyo abubakar ay ku kala hareen bay ka mid tahay wuxuu ku yiri khawarun fil islaami jabbarun fil jahiliyyati bil umarow جاهلي مركات قال كأهيدنا جبار لقى عبصدو أيها هيبير أو ظالم هو دتك كدر دريا هيبير إسلام كمركات توقع شينا خوار ضعيف بالنقطي أينقص الدين وأنا حي بريم أنا نول أي دين تاني ناقص إيسا لقى ما يا أنا نول دين تاني من ناقص إيسا بلما النبي محمد عليه الصلاة والسلام حلبان كقاضي
xilkan rasuulka ka qaaday waa inaan sidiisii uga soo baxa wey. deedna 2 sano keliyuu joogay, 2 sano ayuu wadadeedii ku soo celiyey. allahu akbar. wa kaana aqwa almurtadiina ba'san, murtadiinta waxa ugu baasanaa afka rejijiga weeye, waxa ugu baasanaa wa akharuhum cadadan uguna tiro badnaa banu xaniifata, asxaabu musaylamata alkadaab, qabiilka reer bani xaniifa la yidhaah, oo ninkii musaylama la odhanayay ee baanaalaha ay nebinimada sheegtay rasuulkoo noolba raggiisii wey. faqad ijtamaca limusaylamata min qowmihi, musaylama waxaa isugu yimid ciida raggiisa uxulafaa'im iyo inta qowmka la dhaarsan 40,000 min ashidaa'i almuxaaribiin, ragga ugu dagaalyahansana. wa kaana akharu haulaa qad itabacuuhu, intooda badani waxay u raaceen casabiyatan lahu, qabyaalad bay u raaceen, laa iimaanan bihi, rumayn ay rumaysayin oo nebiga ay rumaysayin umayn raacin. laakiin waxay yidhaahdeen kadaabu rabiicata axabu ilayna min saadiqi mudara. reer rabiicay reer mudar waa 2 jilib oo walaala ah, sidoodabana jilbaha reeruhu lababa say yani isugu dhow yihiin, xintan iyo xifaaltan baa ka dhexeeya soo ma. xifaaltankii ka dhexeeya bay u raaceen oo yidhaahdeen beenaalaha reer rabiica adeer ayaanu ka jecellahay kaa runta sheegaya reer mudar. faqad kaana bacduhum yaquul, waxay odhanayeen ashhadu ana musaylamata kadaabu, waxaan markhaati furayaa oon ku dhaaranayaa inuu musaylamo nebinimada uu sheegtay beenaale uu yahay, oo muxamedan saadiqun, maxamedna uu runlow yahay. laakina kadaaba rabiicata, beenaalaha reerka yaga axabu ilaya min saadiqi mudar, yaan ka runta sheegaya reer mudar yaan ka jeclahay. bahashii weli way inala socotaa, waxaad moodaaba inagunbaba si gaara inoo soo raacday, inagunbaba si gaara inoogu soo dustayoo aafadeedii iyo masiibadeedii halkanunbay ku ururtayba. allah inaga qabta bahashaas. hazama musaylamatu, musaylama wuxuu jabiyey awala jeyshin kharaja ilayhi min juyuushi lmuslimiin, ciidankii u horreeyey horta wuu waabiyey ciidamadii muslimiinta biqiyaadati cikramata bni abi jahlin. cikrama ayaa ciidankaa hogaaminaya radia allahu canhu, waraddahu calaa acqaabi, ciidankaa dabada lagaga soo dhacay, waa la soo eryaday. fa arsala lahu sidiiqu, abubakar wuxuu u diray jeyshan haaniyan, ciidan labaad biqiyaadati khaalid bin waliid uu hogaaminayo. xashada fiihi, ciidankaa waxaa lagu guray oo laga buuxiyey wujuuha asaxaaba, asxaabta ninba ninkuu ka baasanaa wey, ninba ninkuu ka baasanaa. luqadda reejigjigaa fahmaya soo maa ya, oo min alansaari walmuhaajiriin, ninba ninku ka geesanaa, ka khatarsanaa, ka khatar badnaa wey. wa kaana fii talaacatiha, ilan raggan waxa weeye waa horaa raggan dab iyo dhagaxba ay ka soo bislaadeen, nin walba waa la yaqaanaa wuxuu galo iyo wuxuu gudaba waa la yaqaanaa. wa kaana fii طaliicati haulaai wa haulaa, qoladan ansaar iyo muhaajiriin ragga u horeeya waxaa ka mid a albaraa bnu malikin alansaariyu wa nafarun iyo koox min kumaati lmuslimiina, muslimiinta geesiyaalkooda aan gabaninba, lagumaba yaqaanaba gabasho. salaamatun akucma meydhan baa kiyaab ka mid aho dhimasho bayca ku galeeyaba, maba soo noqonaya anigu leh. iltaqa aljeyshaani calaa ardi اlyamaama, labadii ciidan ay iska hor yimaadeen dhulka la yidhaha yamaama oo najdi ku yaalla, waa bariga sacuudiga dhulka hadda la yidhaha. famaa huwa ilaa qaliilun, wax yarba markii la joogo, xataa rajaxat waxaa xoog badatay kafatu musaylamata asxaabihi, haddana kafadii musaylimi asxaabtiisa xoog badatay. wa zulzilat ilardu, dhulka ayaa lala gilgilay taxta aqdaami junuudi lmuslimiin, ciidankii muslimiinta dhulkaa lala gilgilay. wadafiquu waxay gudagaleen ciidanka muslimiintu yataraajacuuna inay dib uga baxayaan can mawaaqifihim, dhufaysyadooda inay dib uga baxayaan. xata iqtaxama asxaabu musaylamata, ilaa musaylama raggiisu ay iqtixaameen, yani ay ku daateen wey. iqtaxama ay ku daateen, xaggaa horena macno kalenu soo siinay soo maa. iqtixaamku waxa weeye idan la-aan meesha ta ugu daadato wey, loo galo. ay ku daateen fustaada khaalid bin waliid, teendhadii khaalid
dagaalka ka hogaaminayay waqtalacuuhu ay rujiyeen teendhadii min usuuli xididada ay usoo rujiyeen wakaaduu ay u sigeen yaqtuluuna zawjatahu xaaskiisa inay dilaan ay u sigteen lowlaa an ajaarahaa waaxidun minhum haddaan nin iyaga ka mida una magan u noqonin nin iyaga ka mida magan u noqday oo gabadhii zawjadii khaalid badbaadiyey cinda dalika markaas iyada abay shacara almuslimuuna muslimiintu dareemeen bilkhatari daahimi khatarta kusoo degtay ayay dareemeen wa adrakuu waxay fahmeen annahum iyaga in yuhzamuu amaama musaylamata haddii la jabiya maanta ciidanka musaylama ay jabiyaan falan taquuma lilislaami qaa'imatun islaamka lug u ku taagnaan doono oo dambe inayna jiraynin bacda alyowmi maanta inta ka dambaysa walan yucbad allahu waxdahu ilaahayna keliga aan la caabudi doonin laa shariika lahu fi jaziirati alcarabi jaziira alcarabiya dhexdeeda wahaba khaalidun ilaa jeyshihi khaalid wuu kacay ciidankiiba habba yani wuu booday wey ma fadhi baa jooga facaada wuxuu dib u habeeyey tandiimahu nidaamkii ciidanka ayuu dib isugu habeeyey xayثu mayaza almuhaajiriina can ansaar muhaajiriintii gaar buu u maray ansaartiina gaar buu u maray wamayaza abnaaءa albawaadii raggii baadiyaha ka yimidna can haaulaa'i wa haaulaa'i reer walba gaar baa loo maray waxaa la yidhi reerka dhankooda laynooga soo dhaco kaas baa lala xisaabtami baa layidhi wajamaca waxay isuu geeyey abnaa'a kulli abin intii isku oday aba ee oday wada dhalay ilan baashani waxa weeyaan dhalashadani ceeb ma leh soo ma dhalashadu ceeb ma aha laakiin ceebtu waxa weeye adeegsiga xun wey ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu bis waaba intaaba ama hadday noqoto yaa fiican ina akramakum cinda allahi atqaakum marka waa la isticmaalay iyadii nafteedii baa la adeegsaday aynu inagu sida fiican u adeegsan karaan laanahay taxta raayatin waaxidati minhum hal calanoo gaar u ah yaa la isugu geeyey raaya waxa weeyaan calamada yaryar ee ciidamada gaargaarka guutooyinkiiya kooxaha la siiyo liwaana waxaa la yidhaha calanka guud ee ciidanku ku socdo kaa mar walba midabkiisu waa caddaan wey caddaan liyucrafa waa si loo ogaado balaa-u kulli fariiqin qolo walba dagaalyahanimadooda fi lmacrakati loo ogaado dagaalka dhexdiisa waliyuclama si loo ogaado min ayna yu'ta almuslimuun bal muslimiinta dhinaca looga soo dhaco la ogaado reerka dhankooda laga soo dhacay noqoto maxay gabadhaa guri waa markaa reerkaa gabadhna laga guursan waayo gebigooda bulshada ummaddaba laga saaro waa arrin khatara soo ma yaa marka waa yahay cabsan oo dambe wadaarat bayna alfariiqayni labada qolo waxaa dhex martay raxaa macrakatin dagaal dhagax ridqinkiisa mar walba waxaa lagu tilmaamaa dhagaxa lagu ridqo hadhuurka kaasoo daruusin gawsaha ilkaha la ysula tegay daruusin ilkaha iyo gawsaha la ysula tegay taasoo lam tacrif aynan aan soo marin oyna arag xuruubulmuslimiina dagaalada muslimiintu lahaa nadiiran wax la midaba min qabl hore ayna u soo marin wa habata qowm musaylamata way sugnaadeen ciidankii musaylama fii saaxaati alwagaa goobtii dagaalka saaxaati almacraka saaxaati alxarbi weeye way ku sugnaadeen habaata aljibaali araasiyaati buuraha dhidbaday ee adag say u sugnaadaan oo kale walam ya'bahuu uma aaba yeelin likahrati maa asaabahum min alqatli dilka faraha badan ee ku dhacaya danka mayna gelin wa abdaa waxay muujiyeen ay adhara almuslimuuna muslimiintu waxay muujiyeen min khawaariqi albutuulaati halyeynimo mucjiza ah weeye khaariq lilcaada aan la arag maa shay bay muujiyeen low jumaca haddii la ysu geeyo lakaana noqonaysa malxamatan dagaal weyne noqonaysa min rawaa'ici lmalaaximi dagaal weynayaasha ku ugu cajaa'ibsan oo kale noqonaysa fa haada tusaale ahaan raggiiba marka mid mid
دور قفت صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه ثابت بن قيس حامل لواء وحل إلى أفهينك رسولك خطيبك النبي محمد بوها سقى يا أهل جري إن هل أبوها حامل لواء الأنصار علنك أنصار تنينك هيي سقوها عسميي يتحنط حنوط بو مرصدي عذر كميت كلو مريوي يوم مرصدي ويتكفن كفن بو قشدي ويحفر لنفسه حفرة في الأرض قد بو دولك كقطي فينزل فيها إلى نصف ساقيه انتو كنا دعيب إلى هالكا دودو ماذا برتن كودا يو إسركبي بس سيدي تيركي وكل يسركبي ويبقى ثابتا في موقفه بستي علن كينا يساقا علن كنا واكالا دورنا يه لابد قال يوي هل كاسو الثابت كو هذا يجالد عن راية قومه يجالد دافع والدفاع عن راية قومه علن كرير كودا حتى خر صريعا شهيدا إلى هلكي كل شهيد وكل انتي وإن مرضنا إن شاء الله تعالى إساقو ريدي سيلفولي وهذا زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخوه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سيد عمر ولالكي زيد ينادي في المسلمين نواق بحنيا وحول أيها الناس ضلوا عضوا على أضراسكم قوستنباتك قنينة واضربوا في عدوكم عذوين لدع سيفتا وامضوا قدما سداء أصعدا هريدا أصعدا أيها الناس ضلوا والله بان كدارتي لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا هذا الكائن هذا الإيجاد بين مايو حتى يهزم مسيلمة إلى مسيلمة الجبيو أو ألقى الله أمان إلهي لكلمه فأدلي إليه بحجتي أن إلهي حجتي إذا أقيسون إلهي ترتابا نسو الشهيدي منع عبسنين منع عرنا إله الله أكبر وحد مودا إنه خالد كعيدا كبا يستيي هاي صومه خالد كعيدا كبا يستيي هاي رجا وسيدا ولغو ربي سيدا ولغو تربية مركا لتلمام أيو وحال لي هذا مركي أي مدحيين وحي غضان أحد كمذا رعية إنيين رعية مركيين وحي غضان من كستا يسقى مدحي غضان صوبته يتاي أمر رضي بحنيان كون ننكي مدحاها متواضع ويه دولكو إسدقايا رقيسا إسكما وينيسين أيو أمر كيسانا وحلا وحوس بحيانا أمر كيسا توصبا لو فولينيا وحانا نوال بأفولينيا سيدي يسوي كي مدحداي أمر كبسو بحيا أو كلا أيال يفولينيا ساسا يهاين صحابة الرمان ساسا كتل ماناين ساسا كتل بيهي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم صفات اللبات أي لهايين وحوية كثيرون عند الفزع قليلون عند الطمع رقاس مركي الدقال تهي مركي وحتر تهي يوم مدو وحلوقب تمركي تهي هول مركي تهي كثيرون نوال بواهيغن وائكنوي نوال بوائكنوي قليلون عند الطمع لكن مركي هنقوري لقيب سنة يو نوال بوالدوني ورهب الآوي وركالو حاجة قادم ورهب الآوي كالو حاجة قادم مينوي سوما مركا تاس واتي هلكا كو غارين ركني واتي صفادن كو ياشن واتا اي مغرانيسا نبي محمد عليه الصلاه والسلام اي دينتي سمانتا اني سدا شرفت لي نو سو غادو ومانتا دليرادو سدا اي سوغو بدشو وراد بركيسن وي راد بركيسن ما نوغا تاغي ثم كر على القوم زيد محوسمي ورغال عليي فما زال يقاتل حتى قتل ما بصون نقرين وكدنتي وهذا سالم لما شبه لما يرهده بل أحياء عند ربهم يرزقون هو وهذا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه منك اللي سالم أبي حذيفة منك أحريي يحمل راية المهاجرين مهاجرين تعالى كوذا سقع حياه فيخشى عليه قومه مركاسا مهاجرين ويا بين وقعب سنيان أن يضعف إنه ضعيفه أو يتزعزع إنه دقاقو معناها ودي نحو يكعب سنيان فقالوا له حيكوليهين إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك نيوحن كيابينا إن حقاقنا لوغا صدعو
ينك يا بينا فقال وحكو جوابيا إن أوتيتم من قبلي حقيقة هدي لإذن كي مادو فبيس حامل القرآن أكون رقي قرآن كأبوهر حفظي أفرتي قرآن كأبوهر حفظي بكم دياي الله إله قرآن حنبارسا كي أبوه ما بهنا يبيري كما نروش يجن قرآن كيغا هدي حقيقة لا يصدق لا ينوغ صدق ثم كر على أعداء الله وكل رجال علي عدو إلهي كرة باسلة رجال علي جيس النمله حتى أصيب إلى وشهيدي رضي الله عنه سالم عيار بذقبتا وأنكو سيد عميري هدي وسالم نولان الله خلافة يسقى مدردار من هنكو يويا ولكن بطولات هؤلاء جميعا لكن رجع صوتا هل ينمذوذا يجيس النمذوذ تتضاءل ويضعيف يسا أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنهم أجمعين مركي جيس النمذا براء بن مالك لو أيضا ذلك وحوي أن خالدا خالد حين رأى مركو أركي وطيس المعركة دبكا موفديسو يحمى دقالك موفديسو ده يحمى إنه كولانيسو موفد مركي كولاتا وحلقو دبتا إنه كولانيسو مركو أركي ويشتد إنه حالده سيئت كانيسو مركو أركي التفت وحود دايموضي إلى البراء بن مالك وقال حكوري إليهم يا فتى الأنصار إن كان يريد أنصار يدو صعب يرهر أقل فالتفت البراء إلى قومه براء باسده ويرجيسي وقالوا حريا معشر الأنصار أنصاري لا يفكرن أحد منكم بالرجوع المدينة أحد إذن كم يده ينكف فكر بمدينة ينكون نغضبا نقض بينا نكف فكر فلا مدينة لكم بعد اليوم مدينة دنباء إذن شوك تبير حدي ما شانت كو شبطان وإنما هو الله وحده ثم الجنة إلهي باب يا بهيستان إيا جنة دونتا محمد كدون إنسان الدنيا مدينة حد كسي دون إنسان با جنة دونتا بير أحلقوا بدشاء إني شرين السلكيني أتكتي مادين ديبو دونتا بير الله أكبر ثم حمل على المشركين تبو وري وحملوا عليهم وإلى ورن وانبرا وإسقني انبرا وإسقني يشق الصفوف صففك عدو ويسوه الصدا وكل الشاحية وإسقني ويعمل كجشقيي السيف سيفته كجشقيي في رقاب أعداء الله عدو إلهي قرته ذا كجشقيي حتى زلزلت إلى الجلجلي أقدام مسيلمة وأصحابه كل جلجشي فلجأوا إلى الحديقة من حيث سميين بيرتي بيكوداتين حديقة دي أي حرض وهيد يكوداتين وبير التي عرفت في التاريخ ذا كلما مقع بحضي بعد ذلك باسم حديقة الموت بيرتي جيري دابلي لكثرة ما قتل فيها في ذلك اليوم أنت دتك بدنا يكون انتي درادت بحديقة الموت له كانت حديقة الموت وحيا هيد هذه يتنه رحبة الأرجاء مدنا عيديه واسعيهم هيد سامقة الجدران جدار رديدو لا ديريهم بيهاي جدار دير والدفاع لو قلت لك لي بيهاي فأغلق ويصوح الدين مسيلمة إيو والآلاف المؤلفة من جندي كوميال كالسوء الرئي المؤلفة المجتمع لسوري جندي عليهم الباب دي بوسطك صوح الدين بقى كان شلدي وجيتين وتحسنوا وحيسكو إلاليين بعالي جدرانها جدار دادير يا نوصو فنان كرير هذين وجعلوا حيقو ذقالين يمطرون إني كسو دأسين يان المسلمين مسلمين تا بنبالهم ورمئنا ليبتو ذا من داخلها يهوس قدها ساوسو دأسين يان فتتساقط عليهم أي ليبت السنة وذتاكو سو دادنيسو تساقط المطر سروب كودو كله عند ذلك مركاسا تقدم أؤس الصوت ديبي مغوار المسلمين مقبضها مسلمين تو الباسل جيسيغا البراء بن مالك مغوار مقدام واسكم معنا وقالوا حريا قوم تلك يوم ضعوني على ترس مع مبادرة رجعني سيدا أي يعني أوكينا يان تلوين كاللو قوليستو أي أوكينا وحد مودا إنه خالد كي عيدا كبا
hogaaminaya mas-uuliyaddu ay saaraydu yahay ruux kasta laakiin keligii baa mas-uuliyadda isagu isa saaraya wuxuu yihi niman ya waa anigan taagta darane gaashaan iyo dulliga warfacu tursa cala rimaax gaashaanka warmo hoosta ka geliyo sidaa u dallaca anoo dusha ka saaran waa kow uma qdifuuni ila alxadiiqa ituuraba gebigayga dhama beerta igu dhex tuura qariiban min baabiha albaabka agtiisa igu tuura bal jajaba muna ka yaabay oo halkaa deedna wax la googoosto waxaasi uma muuqdo wax kala u muuqda muxuu yihi markaa fa ima an ustashhad inaan shahiido kow dheh wa ima an aftaxa lakum albaab inaan albaabkan furo labadaa miduna noqotay wa fii lamxi lbasar ma uunan ilbiriqsigiiba jalasa albaraa ibnu malik calaa tursin isagaba gaashaan haystee gaashaankiisiibuu ku ururay ku dhex fadhiistay faqad kaana da'iila aljismi jirkiisu daciif yahay naxiilahu weyd awey warafacatu casharaat rimaax yaa cuwaafiyo wixii magacyada lahaa waxaa de miyuu arkayba ya allahu hal mar laga yaabaa timir yaroo timir inuu dhadhamiye xaggee buu cayilka ka keeniba warafactu casharaat rimaax tobanaan waran ayaa dallacday faalqatu fi xadiiqati lmowt beertii ku dhex tuurtay bayna alaalaafi almu'allafati min jundi musaylama fanazla calayhim wuxuu ka duldegayba nuzuula saaciqati hanqadh sidii oo kale yuu madfac sidii oo kale u dam kusoo dhex yiri ma meeshaasa loo istaagi ninba waa inuu meel u cararo sooma sidii shaydaankii inta dhuusada laysku qaso waa inuu ninba meel ka dhacoyaa balaayada dushay naga soo degtay waa maxay oo nin walba naftiisa mooye uu iloobo wuxuu difaacayi ilaa waa baashu waa casabiyad un keliye wamaa zaal dee kama zuulin yujaalidum intoodii soo baraarugtay ee la dagaalantay inuu yujaalidum la dagaalamayo amaama baabi alxadiiqa albaabka beerta hortiisa wayucmil uu kaga shaqaynayo fii riqaabihim asayfa sidan u laynayo sidan isaga celinayo sidan u dilayo xataa qatala casharata minhum wafataxa albaab allahu akbar 10 buu dilay isdulligay albaabkiina fog buu ka siiyey wabihi isagooy ku taallo 87 jiraaxa dhowr iyo 8 nabar min bayni ramyatin bisahmin leeb lagu soo ganay aw darbatin bisayfin ama seef lagu dhuftaya ma dhimanayo haddana cajaa'ib fatadafaqa almuslimuun muslimiintii baa ku soo buqatay sidii daad fakaday oo kale iyo ku soo buqdeen calaa xadiiqati almowt min xiitaanihaa gidaarada wa abwaabiha albaabada waacmalu suyuufa seeftay kaga shaqeeyeen fii riqaabi almurtadiin murtadiinta qoortooda allaa idiina magan galay bijudraaniha gidaaradeeda xataa qataluu minhum ilaa ay ka dileen qariiban wax ku dhow min 20,000 wasaluu ilaa musaylama ay gaadheen fa ardowhu ay rideen sariican isagoo dilay ay rideen oo isagana ay ku guulaysteen ninkii waxshi ahaa ibnu xarbi uu sababu noqday cumila waa la qaaday albaraa ibnu malikin radi allahu canhu ilaa raxlihi meeshii alaabtiisu taallay liyudaawaa fiihi si loogu daweeyo kuwan waa la jabiyey wa qaama calayhi wuxuu u nagaa khaalid bnu waliid radia allahu canhu shahran bil buu u nagaa yucaalijuhu min jiraaxi nabaradii uu ka daweynayo xataa adina allahu lahu bishifaa ilaa ilaahay caafimaad u ogolaaday wa kataba lijundi lmuslimiin ciidanka muslimiintana loogu qoray calaa yadayhi isaga sababtiisa annasra guul loogu qoray dalla albaraa ibnu malik alansaariy baraa wuxuu ahaaday wey yatuuqu inuu xiisoonayo ila shahaadati shahiidnimada allatii taasoo faatathu seegtay yowma xadiiqati lmowt maalintaas shahaadadii shahiidnimadii seegtay ayuu u cushqinayaa u tawqayaa u xiise qabaa wadafiqa wuxuu gudagalay yakhuudu inuu gelayo almacaarika dagaalada waaxidatan baxda ukhraa kolba dagaal shawqan isagoo aada ugu xiise qaba u cushqisan u jecel ilaa taxqiiqi umniyatihi اlkubraa inuu xaqiijiyey yididiiladiisa weyn aljihaadu almowtu fi sabiili اllaahi
asmaa amaaniina baa la yidhahdaa in mowt fii sabiili illaahi aan ku dhimanaa waxay tahay asmaa amaaniina yididiladeenna meesha ugu sarraysa ee ugu dambaysa waxay tahay almowtu fii sabiili illah waxaniinan isagoo u xiisa qaba jecel ila allixaaqi binabiyihi lkariimi sala allahu calayhi wasalam inuu nebi moxamed ka daba tago allahu akbar xataa kaana yowmu fatxi tustar waxaa la isla soo gaadhay tustar furashadeedii waa halkee waa acdam madiinat khuzistan alyowm gobolka khuzistan la yihahdo magaalada u weyn weeye yidhi tustar furashadeedii ciidankii uu hogaaminayey sacd bin abuqaas min bilaadi farisa faqad taxasana alfursu farisiyiintu waxay isku ilaaliyeen fii ixda alqilaaci almumarada qalcadaha almumarada ee shubka wada a gebigiisuba mid ka mid a oo gidaar baa la dhisan gidaarkaasaa marka la isku difaacayo wax ummadihii hore laga bartay wey faxaasarahum almuslimuuna muslimiintii gaadhkay ka qabteen waaxaatuu bihim waxay isku wareejiyeen ixaatata siwaari jima xidhku ama saacaddu sida isugu wareejisa bilmicsami micsamku waa meesha saacaddu ku xidhanto ama dahabka haweenku gacanta ku xidhaan meeshay ku xidhantaa micsam la yidhahdaa saasoo kale muslimiintu hal meela oo ruuxna ka baxo ruuxna ka soo galay uga dhaarteen falamaa taala alxisaaru markay in badan gaadhka laga hayay oo la go-doomiyey washtadda albalaa'u cala alfursi dee balaayadu ku adkaatay gaajoodeene oomeene rafaadeen jacaluu waxay gudagaleen yudalluuna inay ka soo laalaadinayaan min fawqi aswaari alqalcati qalcadda dayrkeeda korkiisa salaasilo silsilado min xadiidin bir ah saa u soo tuurayaan silsiladahaasoo culliqat biha afka hore laga suray kalaaliibu huug waxaa la yidhaahdo jillaabta baasha saa u qalloocda ee lagu jillaabto ama markabku uu alaabta ku dejiyo wiishashku ay isticmaalaan waan aragna soo maaha kalaaliibtaas oo min fuulaadin min xadiidin bir awe oo haddana xumiyat la caseeyo la kululeeyey binaari dab lagu kuleliyey ay saa usoo tuurayaan xataa hadad waxaa la kuleliyey xataa hadad ilaa ay birtu noqotay ashadda tawahujan mid ka huritaan daran min aljamri dhamacdana ka huritaan daran oo aada uga cas ay noqotay fa kaanat waxay ahayd tanshibu taqabsatay surata fii ajsaadi lmuslimiina muslimiinta jidhkooda iyo saa u surataa wa taclaqu biha oy qabsataa fa yarfacuunahum ilayhi markay saa u surato yay silsiladii dallacaan marka imaa mowta wa imaa calaa washaki lmowt isagoo qofkii muslimka ama dhintay ama calaa washaki lmowt ama dhimasho qarka u saaran ayay gebigiisaba dallacdaan facaliqa kullaabun minha kelbad ka mida waxay qabsatay bianas ibni malikin radia allahu canhu akhiihi albaraa ibni malik walaalkii anas bay qabsatay famaa in ra'aahu lbaraau baraa markuu arkay walaalkii oo sii wadato xataa wahaba calaa jidaari alxisni ilaa si daanyeerkii yuu ugu booday gidaarkii ee waxwey qalcada wa amsaka wuxuu qabsaday bisilsilati silsiladii allatii taxmilu akhaahu walaalkii sii sidatay yuu qabsaday oo dab adee wajacala wuxuu gudagelay yucaaliju inuu wadwadayo alkullaaba baasha huugga ah liyukhrijahu min jasadihi si uu jirkiisa uga fakiyo fa akhadat yaduhu gacantiisii waxay gudagashay taxtariqu inay gubanayso watadakhinu ay qiiqayso falam ya'bah laha laakiin dan kama gelin lam ya'bah laha uma aaba yeelin danna kama gelin xataa anqada akhaahu ilaa walaalkii uu badbaadiyey wahabata ila alardi uu dhulka ku soo dhacay bacda an hadat yaduhu kadib markay gacantiisu noqotay cidaaman lafo laysa calayha laxmun aan hiirba lahayn wa fii hadihi almacrakati dagaalka isaga ayuu dacaa ku ducaystay albaraa bnu malikin alansaariyu radia allahu canhu ku ducaystay ilaahay ku baryey an yarzuqahu shahaada inuu ilaahay shahiidnimo ku arsaaqa uu ku baryey faajaaba allahu ducaahu ilaahayna ducadiisii u aqbalay xayثu khara sariican shahiidan halkiibuu ku dhintay ee muqtabitan biliqaaءi illahi isagoo la kulanka ilaahay
aad u kamanayo aad ugu xiisaysan nadara allaahu allaha nuuro wajha lbaraa ibnu maliki radia allahu canhu fi ljannati jannada dhexdeeda allaha ku nuuro waaqara caynahu indhihiisana allaha kaga farxiyo bisuxbati nabiyihi muxamedi calayhi الsalaatu wasalaam inuu rasuulka wehelkiisa noqdo waradia allahu canhu ardaahu isaga ilaahay hana raalli ka noqdo hana raalli geliyo isagiyo saxaabada kaleba inagana allah inaga dhigo kuwii jacayl dhaba jeclaada kuna dayde ka run sheega raggaa ku dayashadooda un baynu ku badbaadi ogaada niman yahow janno waa tasaa loo raadinayo jannatayn saynu u raadinayno loo raadinaya ma aha saynu inagu u raadinayno ta loo raadinaya ma aha janno kaasay noo soo baxday soo ma saas darteed waxaan fahmaynaa xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna war hooy ogaada badeecada ilaahay qaali wey badeecada ilaahay waa janna ogaada marka maxaa la rabaa ilaa aan nafta saa u dhiibno haddii nin baa ninka kale uu xagga dambe ka maro nin walba nolol waxa weeye ku taamayo masaajidkana aan buuxino oon ku fiicannahay suuqana aan kharib la dhex soconno oon xafiiska kharib la dhex soconno keenii qandaraaslaha uu kharib la dhex socdo keenii shaqaalaha uu kharib la dhex joogo oo laaluushkii guranayo oo kana uu shiraau dhimam samaynayo damiirkii dhallinyarada uu kharibayo o fasaadinayo waxa weeye maynaan fahmin waan ka been sheegnay amaam allaahina subxaanahu watacaala xisaab adag ayaa inoo taalla ninkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markii uu umulquraj meeshuu joogay yahuudda meeshii ay lahayd uu joogay xaday macawista xaday ee uu yidhi dhintay deedna la yidhi hanii'an lahu shahiidnimaan ugu taaniyadaynaynaa kalaa buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam lagama yaabo ina ashamlata alatii akhadaha min almaqnam latashtacilu calayhi naaran macawistii yarayd uu khaniimada ka dhex qaatay lam tusibha almaqaasim oon la qaybinin uu ka dhex qaatay yaa dab ku noqotay oo ku shidmaysa buu yihi nabigu calayhi salatu salaam deedna saxaabi buu amar siiye wuxuu yidhi mikrofoonka qaado dadka la dhex maro waxaad ku tiraahdaa jannada ma gelayo ilaa nafsu lmuumina naf ilaahay rumaysay mooye jannada ma gelayso sidan iyada ah ee hoos wax isaga dhiibka iyo hoos ka qaadashada yihi maxay ka dhigan tahay islaamnimadii jannada lagu gelay maaha soo ma islaamnimadii jannada lagu gelay maaha war xafiisyadeenna aan nadiifino war meheradaheenna aan nadiifino war biilkeenna aan nadiifino nimowna inta lagu qoray waxaan ahayn maba helayside intaa un baana un gurigaaga mariye iska nadiifi aayar gaajo miyaa lagugu ballan qaado ma waxaa lagu yidhi gaajaa ku dili doonta maa laygu yidhi saa un bay u eg tahayba in nin walba la yidhi gaajaa ku dili u leeyahay ilaah maanta tani hadday ku dhaafto dibba waxba u heli maysid maanta intaas ka qaadato waa tawbo keeni doontaayo gurigaad dhisatayna hadhow markaad xalaasha hesho ayaad iskaga bixin doontaa haye fariid caqli badan oo ilaahayna ka caqli badiya sooma tiid marka ya ummadda allaha kaa qabto haddaad waantoomi weydo ummadda allaha kaa qabto waxa weeye markaan saa leeyahay xafiisyadeenna waxaa jooga dad aan ku faanayno xaqiiqatan dad badan oon ku faanayno oo nadiifa oo tusaale fiican inoo ah way joogaan waxaa kaloo jooga kuwa diir ah diirta ma aragteen xagga dambaba ka tuurtaa sooma diir dabala kuwayna way joogaan marka kuwaa diirta ahi haddayna waantoobaynin oyna wax ku qaadanayn allah inaga qabto xafiisyada allah inooga nadiifiyo inta nadiiftahay inuu inta kale nadiifta ku soo ururtay hoggaan allah inooga dhigo subxaana rabbika